hadda waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo barnaamij aan ugu magac darnay hal maalin iyo nolosha. waxaan ku soo qaadan doonaa qaab nololeedka Soomaalida ku nool qurbaha. maantan waxaan idiin haynaa hal maalin iyo nolosha Ibrahim Ali Samatar oo ah duuliye Soomaaliyeed oo degan magaaladaas Melbourne ee wadankaas Australia. kulan aanu la qaadanay sidii uu dhacayna daawasho wacan. I'm hoping so. safarkaygii aan Australia ku tagay markii aan bilaabay ururinta nolol maalmeedka Soomaalida reer Australia waxaan la kulmay duuliye Soomaaliyeed. maanta waxaan idiin hayaa hal maalin iyo nolosha Ibrahim Ali Samatar. markii ay damacday qof Soomaaliya inaad ka haysid maxaa waxa ugu horeysa ay ku yiraahdaan ay tahay diyuuradda baarashuud ma leedahay? diyuuradda baarashuud ma leedahay. Okay, markii ugu horeysa aad tiri diyaarad baan baranayaa dad badan wax u maleynaya inay ku yiraahdeen maxaa u baranaysaa diyaaradda maxaa yeelay waa lagu xirayaa iyo su'aalaha lagu weydiin wax ma jiraan dad saas kala waa jiraan dad badan ayaa jiro oo su'aalahaas ila weydiiyay talana igu siiyay xataa ha noqdaan dad member ka mid ah family-gayga macnaha maadaama qofka aqoon badan u lehen sharciyada wadamada sidoo wax u arko wax kugu sheegaa laakiin way ka duwan tahay saas waxa jiro nin aan saaxiibo aad u nahay oo macnaha si gaar habeen casho igu kaxay dhahay inuu arinta ka fiirso oo wuxuu dhahay inuu family-gaaga dhibaato u keensan laakiin ma uu garaneyn waayo macnaha marxalado oo adduunka ka dhacay leeyahay ayuu u fikiray laakiin alxamdulillah anaga waxaan joognaa wadan wanaagsan oo macnaha wadan qiimo leh waa kaasa. Okay, ma laga jireen dad yani intee ku soo wacan ku yiraahdo niyo supermarketka Krogerka wax ka soo gadanaya kaale raad diyaarad igu si waxyaalahaas kala waa jiraan dad waxa jiro oo dhahay niyo waa guursanaya waxaan rabaa aniga iyo gabadha aroosadda inaan qaadid marka hadii ay suurtagal noqonayso inaad naga qaadid receptionka marka waxaan horta helicopter ma ahan waa diyuurad waxay u baahan tahay runway meel kastana lagu madegi karo airportka meelan ahayn ama meel ana sharci aviationka u siinin lagu madegi karo marka dad badana jokes u dhiibaan oo way kula kaftamayaan waxay ku leeyihiin niyo diyuuradda hadaan naqaadaysid macnaha waxa ay ka fikiraan waxa way if something goes wrong hadii ay wax dhacaan dhibaatada waxa ugu horeysa Soomaaliya marka ka fikiraan waxa way dhibaatada khayrka iyo fiicnaanta iyo diyaaradda hawada soo marsiin iyo quruxda iyo ma ka fikiraan waxay ka fikiraan if something goes wrong hadii wax qaldamaan marka dhowr jeer aan u sheegay waxaan dhahay diyuuradda way ka safe gareysan tahay gaariga wax igu raacay su'aasha satr ma jiro laakiin hadii la fiiriyo taariikh ahaan meeqa shil gasho baabuur maalintii magaaladan Melbourne bas laakiin marka u fiirisid meeqa shil gasho ama diyuurad dhacdo adduunka waxa laga yaabaa weegi inay mid dhacdo ama bishiyaba laga yaabaa ama inayna dhicinbo way ka safe gareysan tahay diyuuraddan waa laga taxadiray waa wax laga warqabo qofka marka uu ku kaxeynayna waa qof professional ah aqoon u leh hadii wax dhacaana naftiisa qofka asaga ayaa ka jecel the only way uu ku badbaadin karana waa inuu diyuuradda dhulka dhigaa marka wax barashuda looma baahno waxa loo baahan yahay safe flight wax la dhaho dhalinyaro badan oo jeclaan lahayd inay pilot noqdaan ama jeclaan lahayd in ay yani noloshooda heerka gaaraan oo dadku markay yiraahdaan war maxaa waxaas ku falaysaa oo iska dhaafaa jira marka maadaama adiga wixii aad jeclayd amaanta heerka gaartay fiican maxaa kula talan lahayd dhalinyarada rabta in ay wax sameeyaan waxay doontaan noqoto fiican ama pilot ha noqdaan ama ha noqdaan engineer ama takhtar ha noqdaan maxaa dhihi lahayd wallahi waxaan dhihi lahaa horta in ilaahay laga baqo mar walbo qofkana waxa wanaagsan markuu wax baranayo waxyaabo badan ayuu la kulmayaa waxayna wax barashada u baahan tahay wax la dhaho sabar iyo waqti labadaas ayay u baahan tahay qofku waa dhacaya isweydiin ma lahan laakiin qofka marka uu dhaco macnaha markaas ayuu kaga fiican yahay inuu cala duul u baaso inuu truus u baaso sababtoo ah wuxuu garanayaa macaanka iyo dhibaatada uu soo maray respect gaar ahna waa u lahaanayaa marka walaalayaal qofkii rab inuu wax barto ku dadaala wax barashadiina waqti u hura sabarna way u baahan tahay dad badan oo waxa jiro dhalinyaro jeclaa inay bartaan flyingka duulimaadka maadaama unfortunately ay tahay nasiib daro dawladda ma organize dawladda fundraise ma siiso
oo student loan waxay dhahaan oo kale ama hex magaaladina waxa laga dhaho dawladda ma fangarayso qofka hadduu rabo inuu duulimaad barto dhalinyaro ayaa jirtay oo isku dayday nasiib darro way ka hareen laakiin ilaa hadda kama aana harin waa ka daba laabtaa waana ku dhiirigeliyaa inay sii wataan inkastoo uu qof walbo uu yaqaano dantiisa waxa ugu jirto. Ibraahim Cali Samatar waa duuliye sharciyeysan kana soo baxay iskuulka laga barto duulimaadka ee magaaladaas Melbourne ee waddankaas Australia. Ibraahim oo weligiis jeclaa inuu maalin barto sida diyaaradaha loo kiciyo ayaa maanta igu marti qaaday inuu hawada Melbourne soo dulmariyo. haddii in case aan engine failure helno waxaan ku degaynaa meel la dhaho parig meel cidla ah ama badda ha noqoto ama meel cidla ha noqoto marka qofka gadaal fadhiya waa inuu muraayada iska jabiya uu kasoo baxaa qofka hore fadhiyana albaabkaas iska furayaa. geedahan waxaa carburetor waa ku shaqeeyaan geedahan marka wuxuu u baahan yahay hadduu saacado yaallo in carburetorka aad fuel ku shubatid hadhow marka saasuu ku kacaa. Acha diyaaradda fure leedahay fure leedahay kan waa weyn ana fuel leedahay taas iyo taa kale iyo furo ma baahno masterkan haddii la daaro waxaa jira batan la taabanayo clear prop أنا ناس كثير زي نوقف الجوي area ذي كله. That was very windy today. It was very windy, but shouldn't be dramas for landing. No worries. So alhamdulillah. I hope. How many knots was it, the wind? It was 15 knots. Wow. Yes, it was 15 knots. Normally for the training, some of the training people, they said if it's above 12, do not go. But once you become a commercial, it's your responsibility. Wow. The maximum of this plane can take is 17 knots. And we flew through 15. 15. Yes. With a capable hand. Yes, but it was severe wind. That was the problem. haddaba qof kastoo inaga mida wuxuu kala soo dhex bixi karaa halkan in wax kastoo aad jeceshahay daad joogtayso gaarideeda inaad maalmaha ka mid ah aad heli doonto sida Ibraahim oo kale oo hawada kula jira diyaarad isagoon joogin dalkiisa.